بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هالكان كسو قدبين يا كلمة حال مارين حال بحين وان كحال بحين أيوه أما كو حال سين حال كسين أيوه رير ماخر niman waxa weeye iska daba hadlay oo waxa weeye maamulka Puntland ka tirsan waxaan kaloo kelmad kale oo runshaaga aan u dirayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii hadal durxul oo Hiiraan state uu ku dhaleecaynayay aan iyadana kelmad ka idhaahdo haddaan ku bilaabo xal siinta waxa weeye reer maakhir waxaan leeyahay reer maakhir waxaa jiray kacdoon shacab iyo waxa weeye olole ay waxa weeye doonayeen inay reer maakhir state ay aayahooda kaga tashadaan oo shir baa jiray ka dhacay magaalada maxaa ku dhahday Muqdisho maxaa ku dhahday bishii hore mise 2 bilood ka hor bay ahayd shirkaas waxaa lagu go'aamiyay in shir waxa weeye kale lagu qabto gudaha waxa weeye maxaa ku dhahday deegaamada reer maakhir waxa ayaamaha socday niman siyaasiyiin oo marayay dhulka waxa weeye reer maakhir state waxayna gaadheen waxaan filayaa daraad bay ahayd magaalada Badhan shaqaaqo yar baa halkaa ka dhacday kacdoon shacab baa ka dhacay shacabkuna dareenkooda ayay muujiyeen halka markaa waxaa iska daba hadlay laba nin oo midna yahay wasiirka warfaafinta ee Puntland midna uu yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo dhaleecaynaya wafuudaas maakhir state marka ugu horeysa waxaan leeyahay waxaan xaal ka bixinayaa nimanka qaarkood aflagaadada waxa weeye maxaa ku dhahday aflagaadooday oo waxa weeye siyaasiga waxa weeye maxaa ku dhahdayna dhoore ku sheegay nin waalan runtii jawaabta waa loo jawaabay oo waxa weeye maxaa ku dhahay wuxuu ka hadlayay waa lagala hadlay maxaa ku dhahay madaxweyne ku-xigeenka ninka la yiraahdo ma garanaysaa wasiirka warfaafinta ayaa ka sii horeeyay oo ku tiqtiqsanaya in Puntland ay tahay waxa weeye maxaa ku dhahay reer maakhir waa sax weeye way ahayd reer maakhir way ahayd laakiin shacabku waxa ay leeyihiin anoo ixtiraamaya maamulka maxaa ku dhahday Puntland oo aan walaalaha nahay sidaan reer maakhir walaalaha u nahay ayaan waxa weeye reer Puntland walaala u nahay marka anigoo Puntland waxa weeye maxaa ku dhahay ixtiraamaya haddana waxaan cadaynayaa inay leeyihiin waxa weeye xuquuqda ay ka tashiga dadka reer waxa weeye maxaa ku dhahday maakhir state ana ku taageerayo anigoo aan xumaynayn reer Puntland oo innaba aan la jeclayn wax dhibaato haddana shacabkaas waxa weeye maxaa ku dhahday rabitaankooda iyo aayahooda ka tashanaya waxaan rajaynayaa in ay mudan yihiin tixgelin oo qof walba ay ka mudan yihiin tixgelin oo dareen fiyow leh madaxweynaha maamulka Puntland waxaynu xusuusanaa inuu aad uga ololeeyay doorasho qof iyo cod taasoo macnaheedu ahaa inay dadku aayahooda ka tashadaan tii marka shaqadii dimuqraadiyiinta haddii dadku ay aayahooda ka tashadaan oo ay yiraahdaan annaga ismaamulayna waa xaquuq maxaa ku dhahay masiiriya oo dastuurku u ogol yahay oo ilaahay siiyey oo cidina aan diidi karin marka waxaan leeyahay nimanka odayada waa dee ma garanaysaa maxaa ku dhahday waa dabcan shaqadooda ayay gudanayaan wax kale ma shaqadooda ayay gudanayaan oo dee waxa weeye maxaa ku dhahay maadaama ay maamulka u shaqeeyaan oo midna madaxweyne ku-xigeen yahay midna uu yahay wasiirka warfaafinta aflagaadadu meesha ka reeban laakiin sida kale ay u hadlayaan iyagoo ay ahayd in siyaasiyiinta kale ay ka hadlaan arrintaa waayo sida ay sheegeen waxa weeye ma garanaysaa maxaa ku dhahay reer maakhirba den maxaa ku dhahday nimanka odayada runtii waxa weeye maamulkoodii iyo deegaankoodii waxa weeye maamul bay leeyihiin dowlad baa ka talisa marka iyaga laftooda ayaa waxa weeye de marti maaragtay sharfan oo la sharfay marka sidooda ha u sharfanaadeen oo sharafta halkaa ha ku joogeen laakiin aflagaadada dadka ha ka daayeen baan leeyahay
intaa waxaan kaga baxayaa maakhir state arrinteeda waxaana leeyahay maaragtay maanoo bogaadinaya waxaan u gudbayaa kelmaddii madaxweynaha xasan sheekh oo isagu isburiyo isagu isu jawaaba oo isagu isugu filan wax walba isugu filan ayaa waxa weeye shalay wuxuu ka hadlay waxa weeye qabyaaladda iyo qabaa'ilka is abaabulaya iyo calamada ay qaadanayaan isagoo u duur xulaya reer Hiiraan state waxaan leeyahay marka ugu horeysa reer Hiiraan waxaan leeyahay hambalyo sidaad isugu tashateen sidaad awoodiina u muujiseen horeyso iyo dambaysaba markii horena sidaad isaga xoreyseen al-shabaab oo aad ummadda Soomaaliyeed waxa weeye maxaa ku dhahay indhaha ugu furteen oo aad waxa weeye runtii aad ma garanaysaa maxaa ku dhahay casharo waaweyn caalamka oo dhan aad casharo u dhigteen ilaa al'aana aad idinku ismaamulaysaan iyadoo laydinkula dagaalamayo siyaasad oo wax badan laydiin soo adeegsaday haddana inaad ka dhabaysaan dhaqan iyo siyaasiyiinba iyo shacabba isku duubni iyo maxaa ku dhahay isku tashi inaad muujisaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeedna waa idinla jirtaa qalbigay idinkala jirtaa hiil iyo hooba waa idinla garab taagan tahay guulaysta baan idin leeyahay madaxweyne xasan sheekh qabyaalad baad ku timi iyo maxaa ku dhahdaa unukaa leh ayaad ku soo fuushay jagada waad ogeyd waxaad ka samaynaysay markaad mucaaradka ahayd waxa weeye ninkii maxaa ku dhahdaa soo dhiibay baad ahayd farmaajo waa mareexaan maxaa ku dhahdaa mudaharaadyada qabiilka maxaa ku dhahdaa habeen u shirinayay hoteelada xafladaha ugu qabanayay tolla ayayda lahaa waxa weeye maxaa ku dhahdaa farxaan qaroole iyo waxa weeye lahaa wiilow joog iyo odawaa lahaa waxa weeye maxaa ku dhahdaa wiilow joog ba ma garanaysaa adeerow yaan dhiiqa lagu gelin adigu ahaa dowladnimada la dagaalamay ninka hadda maxaa ku dhahdaa dadka ku hubeeya maleeshiyaadka waxa weeye dagaalada geliya maxaa ku dhahdaa galguduud iyo mudug ma garanaysaa galmudugba waxa weeye colaadaha ka wada iyo koonfur galbeed Hiiraanna waxa weeye isku dayada badan ka sameeyay waa adiga weey aabaha qabyaaladdu waa adiga aabaha qarandumisku waa adiga aabaha musuqmaasuqu waa adiga aabaha waxa weeye dhaca iyo boobku waa adiga aabaha beentu waa adiga shar oo dhan ba adiga ayaa maxaa ku waxaan oran karaa jirjiroolaha waxa weeye insaanka siyaasiga ah maxaa ku la arkaa waa adiga ninka saacadba sida u eegi waa adiga weey marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku leeyahay waqtigaagi waa dhow yahay adaana jawaab isugu filan oo adaa isla hadlaya kaligaaba isla hadlaya dhagahaguna isma maqlaan waxa weeye maxaa ku aqli wax waleeyo iyo qalbi wax waleeyana malihid marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo hadeeyo aan ku leeyahay Ilaahay ku soo hadeeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in la isu taago dalka iyo dadka aad iyo aad baan in salaamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh